kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka cafi iyo masaamax. wuxuu ahaa wiil, wuxuu ahaa waalid, wuxuu ahaa walaal iyo tiir dhaxaadka qoyskiisa. sida loo dilay kas iyo kama tii aad ku tilmaantaba waxaan marnaba isbedelaynin xaqiiqada ah inuu reerkiisa ka maqan yahay iyo inuu ka tagay xanuun iyo murugo aan qiyaas lahayn. daawadayaal toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena qisada Maxamed Cabdi Xuseen oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo isagoo bajaaj wada lagu dilay magaalada Muqdisho sanad ka hor. waxaa marti noo ah aabaha Maxamed Cabdi Xuseen, balse marka hore nala daawada hordhac yar oo ku saabsan muuqaalka iyo dareenka qoyska Maxamed. والله runtii habeenay ahayd laamiga wax ka doontay xabada ayaa dhaceen kadib waxaan maqlay waxaan intay maxamed waxaan nahay keewaayana ninkaaga intaxana macquul ma ahanana akhir ka hor iga tahay macquul ma naqan karto laamiga lagu dil laamiga waxaan ana wada ka imaaday mana maqleen bas kadib qaylo badan aan maqlay ooyin iyo hooyaday labaad ooynaysa maqlay dabaraan ku soo baxay weydiyay shoogay wada qaaday aniga naxdin anigoo dacaslaan ah gabsaarka xataa gacanta aan ku wataa cararay bas kadib badaan baxay baraankii gabsaarkii aan ligu saaray waa baxay laamiga hadii la tagay laamigana qafkii ma yaalo waxa lagu diray wadadaanayto dabka. waa tahay daawadayaal Cabdi Xuseen ku soo dhawow barnaamijka cafi iyo masaamax. waa kaaga mahad celinaynaa inaad naga aqbashay casuumaadii aan kugu casuunay barnaamijka iyo sidoo kale inaad nala wadaagto qisada dhibanaha Maxamed Cabdi Xuseen. marka hore waxaan ka rabaa in aad nooga sheekayso noloshiisa sidee ahayd shakhsiyad nooca uu ahaa Maxamed inta uu dhib ku dhicin ka hor. bismillaah alxamdulillaah waa mahadsantihiin mahad ballaaran usoo jeedinayaa dhammaan idaacadda Universal iyo dadka shaqeeya iyo qaas ahaan qadiijo oo barnaamijkan daadihisa ayadu haddii aan maaragtay ku hormaro marxuum Maxamed Cabdi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah dadaal fara badan aan ku soo baxshay wuxuu ahaa nin ka shaqeeya birta culus sida washashka foorleefyada iyo baawarta waaweyn oo noocyadiisa kala duwan iskugu jira yacni yaraanta marka uu yaraa iyo aqoontiisu waa kala duwaneed qofkii u arkaahay yacni nin yar inuu aragti ahaan u ahaa iyo da ahaanba laakiin waa ka weynaayo aqoontiisu aqoon heer sare ahayd allahu naxariistay Maxamed wuxuu ahaa shaqaalihii ka shaqeynayay dekedda Muqdisho washashka noocyadooda kala maaragtay ayuu wadi jiray aniguna waxaan ahaa kamid baan ahaa shaqaalahaasaan kamid ahaa maamulaan ahaa isaguna wuxuu ahaa nin shaqaalaha u ah shaqaalaha ka tirsan buu ahaa shirkad la yidhaha albeerq waagay timid ayaa maaragtay dadkii shaqaalaha dekedda laga saaray buu kamid noqday markaa kadib waa muddo fara badana dhacday oo ku dhacday shaqaalihii maadaama uu ahaa nin xaas ah yacni markaa dhaqaale xoogan oo maaragtay oo meel kale ku qabsado ama gaadiid ku gatan uusan haysan mooto bajaajka ayaan waxaan ugu gaday wax yaroo lacag u haysta inta kalena degan ugu soo qaaday wuxuu ahaa nin yacni qutulyoonka raadiya maadaama uu nin saaxiibul xaas ahaa wuxuu ku dadaali jiray inuu maaragtay soo dhaxsado maaragtay nolol maalmeedka
sida ayuu ugu shaqaysanaya mootobajaajkaas asagoo weliba ku dadaalay inuu iska bixiyo lacagtii deynka ahayd biilna soo helo taariikhdu markay ahayd 25 bishii shanaad 2016 ayaa lagu dilay niman ka gardaran gacanka gardaran ayaa dishay wadada Maka al-Mukarrama jidka shaqaalaha ayaa habeen lagu dilay muddo adiga qiyaasta 1 saac iyo bar habeennimo fiidnimo si wala kac ayaa loo dilay nimankii dilay markay dileen si naxariis darro ah ayay haddana inta u kor yimideen oo fiiriyeen ayagoon qaadin marka isbitaalka ka dhawaa meesha wadaduna dadku aad bay u buuxeen oo u joogaan meesha laba checkpoint dhexdeedna waa ahaydoo dhan kasta waxaa ka jiray ciidankii kale ma ayan qaban raggii dilayna markay arkeen inuu dhacay oo maaragtay xabadii lagu dhufto ka dhacay mootadii ayay fiiriyeen wayna kaga tageen wadaday kaga tageen si naxariis darro ah oo uur ku taallo leh oo yacni aan loo dul qaadan karin qofka bini'aadmiga soo xasuusta ahay dadkii marka arkay website-yada wax badana laga qoray ummad fara badana meesha joogtay yacni waa wax calool xumo ah oo aan uur ku taallaho aan go-ayn waayo aad iyo aad maxamed waxaa la ii soo sheegay cashaa markaan ka soo baxay ayaa la ii sheegay waa ninkii waa la dilay halkaas maaragtay lagu dilay baa la yidhaahday 2 saac ayaan waxaan ugu tegay CID-da meydkiisoo yaalla waxaa iga hormaray hooyadiis iyo walaalihiisa iga hormaray aniga ayagoo halkii maaragtay ooyi aan ugu tegay CID-da aan ugu tegey gaari ambalaasaa dowladdu ku qaatay kolle waad aragtaan u malaynayaa meeshii laga qaaday iyo meeshii oo ku dhiig baxay dhiigga ka baxay waddada dhanka oo ka yiilay dhankeeda kale u gaaray intaa waxaa weeye yacni naxariis darrada tiillay weeye marka yacni ciidankuna aysan u danayn ayan fiirin iyo cabsida shacabka haysata oo ay qofka u gargaari waayeen marka gaariga ambalaaska dowladdu soo dirto lagu qaaday CID-da lagu geeyey meydkiisaan meesha ugu tegey dabeedna waxaa la geeyey isbitaal Madiino halkaas oo rajaata martadii aan yacni maaragta uga soo qaadnay meydkiisii waan soo celinay xaafadaan keennay aniga kaliya weli ma ahan dad fara badan ayaa soo gurmaday oo haddii alla kuran yahay xaafad dadka degan ahaa ilaahay qadartii waa maaragtahay subaxiyaa la qaaday waa la soo aasay tareedishaa lagu soo aasay dhibaatada markay dhacday meesha waxaa joogay ciidanaa joogay dad fara badan ummad fara badan oo kala nuucna way joogtay waqti fiid horena way ahayd si wanaagsanna waa loo ogaaday nimankii dilay nin xildhibaan ciidankiisaa dilay oo xildhibaanada hadda maanta jooga ka mida markaasna xildhibaan ahaa ilaaladiisaa dishay oo gaarigiisa ay saareed wadatay ayagu 4 nin bay ahaayeen 2 ninoo dusha saaran gaariga dusha ka saaran iyo nin darawal ah iyo sida naloo sheegay ninka xildhibaanka wiilkiisa nin xildhibaan muctarif oo la yaqaano oo weliba maaragtay famos magac dheer la wey markaasna xildhibaan ahaa haddana dib loo soo doorto xildhibaanada dowladda ka mid dad fara badan ayaa caddeeyey gaarigii meeshuu tegey iyo meeshuu galay muddo kadib 5 casho kadib ayaan anigu ka hadlay idaacadda ka hadlay oo aan idhaahday dhibaatadaasaa dhacday dhibkaasaa dhacay arrintaas waa in wax laga qabtaa waxaana geystay oo dhibkaa geystay ninka mas-uulka ah ilaaladiisii idaacadda markaan ka hadlay ninkii xildhibaanka isaguna idaacaddu sidoo kale uga hadlay isagoo dafaraya oo le aniga ilaaladeyda ma ahan shaqana kuma lahan ninka odaga ahoo oo yacni laga dilay wiilka yarka ah ha raadsado meel kale ha ka raadiyo laakiin nasiib wanaag isla markiiba waxaa caddeeyey markhaatiyaal mahado ka gaadhee ninkii taliyaha ka ahay qaybta dhexe iyo maxaa tidhaahdaa maxkamadda ciidamada qalabka sida saraakiisha darajada koowaad darajada labaad dadaal weyn ay u sameeyeen waxaa la yidhahday soo dhiib raggii dilay marxuumka dilay markhaatiyaan u haynaa anna ilaahay markhaati uga sii meeshii horta waxaan ugu tegay meeshii ilaa 30 qofood dad gaarayaan helay oo arkay oo yaqaana oo gartay oo xaqiijinaya maaragta dadkii qaar ka mid ah waxaan geeyey maxkamadda iyo saldhigga bishu maalintay ahayd bishii 5 30keedii ayaan saldhigga hodan oo qaabilsanaa markaa
maaragtahay dhibaatada meesha ka dhacday qaabilsanaa ayaan horgeeyey haye sidaas awgeed ninkii xildhibaanka wuxuu soo dhiibay 3 nin wuxuu ka reebtay wiilkiisii haye oo kamid ahaa dadka meesha socday oo yacni gaariga saaraa haye 3 nin waxaa la keenay saldhigga wayna indifereen ayaguna sidoo kale u dafareen sidii maaragtahay ninkii odaga u shaqaynayeen u dafareen haye dabeedna waxa CID loo gudbiyey haye CID ayaduna dadaal badan ay sameeyday waxay ka sameeyeen qoraal ka sameeyeen haye sidoo kale CID way u diideen ayaguna inay wax sheegaan oo ayada sidoo kale u dafareen CID waa gudbido maxkamadda u soo gudbiday dabeedna xabsiga dhexe ayaa la geeyey 3 nin gaarigii iyo maaragta qorigii wax lagu dilay iyo ninkii odaga ahaa wiilkiisii lama keenin meesha muddadaas waxay ugu qaadatay markhaatiyaal kaana la yidhaahday dadkii markhaatiyaasha aan geeyey CID-da aaqir waxaan ka helay 3 nin intii kale nin baqay iyo nin haddii alla koraya waa dhintay la yidhahday intii yani kiiska lagu dhex jiray nin taliyaha markaa ku jiray habeenkaas lahaa reshoodka joogay labada jagboyn ka mid ah oo madax ka ahaa waxaa la yidhaahday markhaatiyaasha nooga mid ahaa waxaa la yidhi ninkaas waa dhintay baa la yidhi wadnaha istaagay siyaabo kale anagoo u daninayna weliba u malaynayna waxaan helnay dadkii meesha joogay cabsi jirtay awgeed markhaatigii aaqirkii markii la gaaray oo la yidhaahday maxkamadda markhaatiga ka fura CID-dan way ka dhuunteen qaarkood kuwana si toosay u diideenba ma qabanayna dhan anagu ma tegayna dhan meeshaas maxaa yeelay waxa wax dilay kama fiicnin anagu qofka la dilay kama fiicnin anagu si awgeed biqudrati illaahi ilaahay awooddiis iyo dadaal fara badan waxaan helnay aaqirkii 3 nin ayaan helnay oo garatay si fiican u garatay dadka wax dilay gaariga wateen waqtigii ahayd say u yiileen nuucooda maxkamadda ciidamada qalabka sidaahay waxay xukuntay darajada koowaad ayay waxay ku xukuntay 3 nin 2 nin oo kamid ah magay ku xukuntay iyo 1 sano oo tacsiir ah ninkii darawalkan waxay ku xukuntay 1 sano oo xukun ciidan ah racfaan ay qaateen anaguna racfaan ka daba qaadana isla markiiba maxkamadda darajada labaad loo gudbay muddo ka bacdi darajada labaad waxay xukuntay 3 nin kamid ah magay waxay ku xukuntay mag iyo 5 sano oo tacsiir ah labadii kalena waxay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah sidaas ayaa maaragtahay loogu xukumay raggaas anugu marka waa ka hadlay idaacaddan ka hadlay waxaan idhahday iguma filla intaasu maxaa yeelay dilku bareero ahaa dil bareero ahaa qofka loo geystay yani haddii alla koriyay wax sababaho oo yacni cudurdaar keenayana ma jiraan maxaa yeelay gaarigaasoo watay keligiisoo ahaa waxba ma uusan sidan waddada dhexdeeda socday si bareerha loo dilay waana laga tegey marka dil qofku wax dilay qaatil uu leeyahy asaga dil buu leeyahay maqtuul uu dilay asagana qaatil waaye in la dilo ayaan xaq u leenahay qolada maxkamaddu waxay yidhaahdeen anagu intaa ka badan ma awoodno anagoo arkaya markaas xasaaradda haysa in xasaarad dowladeed saaran tahay ninkaas oo sidaas yani awooddaas ay ku gaabatay sidaas ayuu ku dhacay dilkii allah u naxariiste maxamed sidaasuu ku dhacay kadib waxaan raadinay qaraabadiisaan raadinay qaar ka mid ah yani in ay arrintaas ka garaabaan ilaa iyo hadda wax ka garaabay iyo maaragtahay wax nooga yimid lama arko rag dad fara badan oo ay ka mid yihiin shoor meediyaha ayaa ka wada hadlay kheyr allah siiyo yani waa dibadda iyo dalka gudihiisaba si fiican ayaa loogu baahiyey arrintaas waa arrin maftuuxa oo la wada og yahay oo xitaa dowladdii markaa madaxweynihii xasan sheekh yani xitaa aan gaarsiino ogaaday oo og yahay weeye ilaa iyo haddana arrintaas ayada ah wax maaragtahay nooga garaaba ama wax aan ka cafinno qof aan ka cafinno ama qof yani haddii alla ku ran yahay nooga yimaada midna maba jiraba marka weli sidii noogu taagantay annaga culayska sidii noo hayaa sidii culayska u taagan yahay ummadda soomaaliyadna way og tahay way arkaysaa yani waa maaragtahay waa hadimo dhib badan oo maaragtay murugo leh oo aan maaragtay mago-do ah weeye marka sidaasay ku dhacday arrintaas sidaas ku dhacday
daawadayaal waan ku soo laaban doonaa Aaba Cabdi balse markana nala daawada hooyo Caliye oo nooga sheekeynaysa dhankeeda sidii ay dareentay markii loo soo sheegay geerida wiilkeeda. marka ugu horeysa wiilkeyga wuxuu ahaa wiil dhaqdhaqaaq badan oo 14 jir oo shaqo ku bilaabay qof uuna shaqo barana ma laha asla nafsadiisa shaqo bartay 16 jir markuu 17 jir markuu gaaray dekada ka shaqeyn jiray wiishashkaas wada jiray washariyaashu kamid ahaa markii oo Turkiga qabsadeen dekadii oo dekadii marka laga dhalinyarada laga soo buriyay danta wuxuu ku qalifay inuu mooto bajaaj bilaabo markoo kasta dhaqdhaqaaqiisa fiicnaad aan arkayna anaga ku daray 18 jir soo ah 19 jir gabar ku ururay 20 jirna wuxuu ku dhashay wiil kale u dhashay ma sha Allah wiilasha wiilkeyga curudkeyga ahaa waa wiil ugu fiican xaafada Xamarjab aniga kaliya ma dhalin dadka Xamarjabna la dhaleen dadka dhan way ka qeyroodeen markii ay geeridiis ku imaaday annaga maalintii horta ma shaqaysan habeen ma shaqaysan jir maalin oo shaqaysan jir qofkaan habeen qadarta una Ilaahay u qoray inuu habeen ku dhinto oo shaqeeyo ma ogeey habeen ma aadi jiray magaalada fiidkii 12 saacad la gaaro iska soo xaroon jiray maalintii subaxdii hore oo shaqeeyay galabtii ma uusan shaqeynin galabtii dariska dhan uu bashaash u ahaa la sheekaysanay maalintaas habeenkii markii maqribka oo la tukadayna waa dhaqaajiyay annagoo inta iska fadhnay cishii la gaaray la aadaamay cishii lagu jiro odayga masaajidka jiro anoo meeshaan fadhiyo saan u fadhiyo wallahi la soo sheegay Allah wiilkaada waa dhintay marka waxaan asalahay wiilasha xaafada laamiga ma lagu diray wiilkii dagaalna wuu necab yahay askara dishayna waa ii suurtoobaysaani askar wuu necab yahay askar meel ka soo socoto haduu arko baakin u dhigan jiray haddana xaqiiqayba noo ahayd baakin u dhigtay meeshii lagu dilay oo baakin u ahaa askarna markii la dilay askara meesha joogtay shaqaalaha jidka shaqaalaha waa wadada ugu saxmad badan askara meesha joogtay meesha lagu dilay waana asninka dilay dadka dileena inuu soo degtay ninka oo darawalka ah waxaan noo sheegay markaatida noo sheegtay wiil xaafadeena kamid ah bajaajley ah la socdeen markuu inta ka baxayeen wiilkii waxay dhaheen soo bax labadeen waa soo shaqaysanaa inta la dilin ka hor markii laamiga mareen ay wuxuu dhahay ani dadaan helay ay baayay isdhaheen hada dad ma weysaha marka la dhahayna xabad waa ku taal ninkan xabad waa ku dhacday wiilkii waa soo dhaqaaqay wuxuu u maaday wiilkii saaxiibkiisa ahaa dadka dhan waa wada imaadeen askara meesha taagan ninkii intuu soo istaagay darawalka ah intuu fiiriyay waana ka dhaqaajiyay tilmaantiisa sida la sheegay dadka markaatida sheegeen iyo markii la arkina waa isku sii ninkii nin buuran waay jiisna waa yahay Allah fooneeyay miya wax madow gacanta ku sidaa Allah fooneeyay inuu yahay bistoolad inay tahay kala garan waay waana ku leexday waana dhaqaajiyay isla markii dadkii waa la soo qabtay subaxdii waxa dhibaato ah qofkii qof dilay adduunyada qof aan dhimanayna ma leh wala wada dhimana geerida xaq waay qofkii dilay waa inuu sheegaa ana dilay waana dil waa lagu markaati furay haba hana la dilo ama hana la cafiyo inay dhaxaan waxa dhibaatada noogu xanuun badan anaga ee tahay dadkii la soo qabtay ay leeyihiin ilaa ay hadda adeesadan leeyihiin anaga ma dilin ee taagan yihiin markaati lagu wada furay ummadda dhan wada taagan wiilkii inta ka raacin markaatada sheegaayo wiilkii kale ay askarta isdagaalana sheegaayo dadka dhan wada sheegayaan markaatidaas la wada haayaa marka aan dhaxdada noogu xun badan anaga dhibaatadan soo marnay wiilkeena curudka ahaa ilmahaas agoonta u shaqeyn jiray dhibaato ka xun ma jirto marka geeri ka xanuun badan ma jirto marka walaalay adduunyada waxaan la arkayn ma jirto wiilkaas saas nooga bax anaga waa tahay maxamed ma curadkaagu ahaa mase reerka ilmo ka waaweynaa jira maxamed waa gabdhaha ka weyn laba gabdhooda ka weyn laakiin raggu curad u ahaa isaga waayahay reer uu lahaa aad tiri haye reer buu lahaa asag maxamed haye wiil iyo gabar buu ka tegey ayuu ifka uga tegey wiil iyo gabadhii yani ilaahay baa haya laakiin annaga caddaha ayay nala joogaan wiilkiina hooyihiisa haysa iyo ayeydiis noomana dheero derisaan nahay gabadhiina annaga hayno gurigeena joogtaa insha allah waayahay dadaalkaas dheer ee aada cadaaladda u gasheen marka laga reebo waxaad bal iiga sheekaysaa xoogaa ii suuraysaa
sidee noqotay nolosha qoyska dareen ahaan dhaqaale ahaan wax kasta markii geerida maxamed dhacday kadib waa garan kartaa qoys aabahood ka dhintay culays ayaa maaragta meesha ka jira maxaa yeelay qofka qaraabadahi iyo qofka waalidkaahi labay kala yihiin qofka dee alla kuri ilmuhu markasta waalidkood ayaa u wanaagsan annagu caa'ilaan soo gelaynaa markaas anigu awowaan noqonayaa hooyadii kale waxay noqonaysaa ayeyay noqonaysaa iyaduna gabdhihii maaragtay eediyaale noqonayaan waxay wiilasha adeeray noqonayaan yacni waa calool xumo weeye xataa ilmihii hooyadood aabahood ma yaqaanaan maanta marka waa dhibaato intaa la eg mogta waxay ku korayaan ayagoon qofkay arkaanba aaba iska leh aniga hadda aabe yidhahdaan xaq baa muraya in aabe yidhahdaan laakiin aabihii meeshuu ka baxay yacni haddii alla kuran yahay marka waa iska garan kartaa markaad xasuusato hadda saa intaan u eegaan yaar marka qaarkooda marka waa iska garan kartaa ilmihii ma arkaysaa ma yaqaanan aabahood maanta marka waa iska calooliyo wey calolxumo wey maaragta arrintaas waa tahay waxaa tiri dhowr jeer ayaan weydiisanay qaraabadii nimankaas inay garaawshiyo muujiyaan haddii ay garaawshiyo muuji lahaayeen maxaa dhici lahaa ay kula tahay dee wax unbaa samaysma lahaa ma ogtahay qofku hadduu dhinto kulli nafsin daa'iqatulmowt waay qof walbaa dhimanaya adduunyada qof noolaanaya lama arko yacni ama kam ha u dhinto qofkii ama kasa u dhinto yacni waa un laga xaalaya si looga xaalaba ama ha looga xaalo yacni maaragtahay dhaqamada hadda maanta lagu xaalo oo kale looga xaalo ama ma arkaysaa ha lagu kala boodo laakiin waxaad garanaysaa adigu garaawshaad garanaysaa ama waxaad garanaysaa wixii wax kuu geystay ayaad garanaysaa oo taqaanaa hadda qaraabo ma hayno yani haddii alla kuran yahay ninkii odogaha mas-uulka ahay isagii ma hayno dowlad noo garaawdo hadda nooga garaawdo arrintii ma hayno yacni waxaad moodaa arrinta meeshaas waxaan dareemayaa ducfigaas ku yimid haddii qofkaan la qisaasi lahaa oo maanta oo qisaas u taagnaan lahaa xaaladdu saan ma ahaateen laakiin ducfigaas meesha nooga yimid waxa qisaas la-aanta taagan wey iyo ducfiga yacni xagga dowladda ka yimid qof wax dilay oo la arkaayo bareer u dilo shacab aho maskiin aho yani waxba aan geysan qofkii dilay haddana aan loo dilayn wax yani adag wey maaragta laakiin raggii ayaga ahaa dilka geystay waxaa tiri xabsigay ku jiraan ma waysan idinku filnayn qoys ahaan in ay xabisan yihiin oo la xukumay naguma filla waxaysan noogu fillayn soomali dhaqan badan bay leedahay waddankana waxyaalo fara badanoo ka jira corruption ah yacni waa ku habboonaan lahayd ma arkaysaa annagu ciidanna ma nihin maalin kastana waardimahay karno dad shacabahaan nahay masaakiin ah oo yacni aan awood u lahayn in yacni haddii alla kuran yahay ay xabsiga taagnaadaan maalin kasta marar qaarkood waxaana soo gaaraya in la yidhaahdo si yacni dadbanaa loola baxaya marka taa lafteedu urkutaalladay ka mid tahay iyo waxyaalaha murugadan markasta nagu qabanaya ka mid tahay arrintii iyo aan dhinac u dhicin in yani dadkii la yidhahdo waa lala baxaya culays inteeda la eg wey marka kalsooni daradaasna iyaduna waa iska jirtaa waa iska imaanaysaa marata waayahay qisada maxamed markii ay dhacday sanad ka hor meel kastaa laga ogaaday inta isticmaasha warbaahinta bulshada way ogaadeen baraha warbaahinta bulshadana aadaa loogu faafiyey qisadaas dad badan oo ka xanuunsadayna way jireen oo soomaali ah oo asagana aan aqoon u lahayn qoyskana aan aqoon u lahayn laakiin sida falka u dhacay aada uga xumaaday marka maxay ahayd sababta dhabta ah ee keentay in la dilo maxamed dilku sidoo u dhacay xabadda lagu dhiftay maxay ka dhalatay waxaasoo dhan ma laga hadlay wax ma la sheegay sababta ay ku dhacday horta waa waxaa weeye dadka ayaa la iska dilayaba waayaha qofka macno daraa la iskaga dilayey ciidanku xabadi iska furi jiraan wadooyinka ay ku fura jiraan sida nolosha waddada ayaa jaam noqotaana la yidhahday oo xidhantay gaarigana maaragtay keligiisoo meesha ku jiray si ayuu u degdegsanayo xataa markuu dilay waddada dhanka kale uga baxay baa la yidhahday
isagoo si life ah gaari waa la joojiyay baa la yidhahda markuu ninka xabadda lagu dhuftay yacni isla markii waddadu waa sidaasay jaam u ahayd dhanka kale uga boodana marshiboodagay ka boodana la yidhi xagga u boodan marka waxaa mas-uuliyad darro waxaan u malaynayaa markaa dowladda xaggeeda ka taagan maxaa yeele qof dila haddii la qabanayo amase markiiba isla markiiba waajibkiisa la marinayo lama dileen dadka lama dileen waxa wax dilayaana ma ahan yacni waa dadkii shacabka dadkii yacni ay ku hiranayeen weeyo mas-uuliyiintii dadkii mas-uuliyiintahayo oo golaha shacabka ahay askartoodii way wax dilaya marka dee waktigaas xaaja saas ka ahayd mana loo dilin wax sababahoo loo dila lama arko wax sababa haba yaraatee looma dilin gaari waa ka dambeeyey ninkaanu kama horeyn geeskiisa ma uusan olin waa ka dambeeyey xabada la furo jidka lagu furayana si bareerha xabada loogu dhuftay waad aragteen meesha xabadu kaga dhacday dadka qoray oo ka qoray maaragtay meediyaha ma ahayn aniga dad yacni aan aqiinay ma ahayn laakiin markay arkeen dhibaatada dhacday iyo dhibkaas yacni kadisadaahoo dhacay haddana naxariis darrada ayuu nin walba yacni ka faallooda waxaa ugu horreeyey faqiya ugu horreeyey marka hadda baarlamaan ka mid aho la yidhahdo faqi ayaa ugu horreeyey maxamed rashiid nin la yidhahdo ku xigay aniga nimankaa ma weliga ma arag lakin magacyadoodan arkaa nin la yidhaahdo cali muuse oo qoraaweyn ah ayaa wax ka qoray rag fara daahir calis wax ka qoray waxaa wax ka qoray nin la yidhaahdo yuusuf cali isagona waxbuu ka qoray cabdicasiis africa wax ka qoray rag fara badan wax ka qoray adigu wax alla wixii yacni bilo-aadnimada ay wax un meel uga jirtay ayaa wax ka qoray idaacaddan maxay ahayd website-kan la yidhaahda caasimadda online mar dambaan ka akhriyay anigu iyo ay ku soo qaateen sidaas oo kale waxay ku soo qaateen qormo dheer ay ku soo qaateen uga faalleynayaan arxandarrada ummadda shacabka lagu hayo marka dadkaasoo dhan anigu dadaan garanayo ma ahayn laakiin bilo-aadnimo awgeed ayay maaragtahay iskaga qoreen daawadayaal markana nala daawada warbixinta kooban ee barnaamijka geerida lama filaanka ee qof la jecel yahay ku timaada waa mid aad u xanuun badan waxaase xanuunka sii kordhiya marka uu qofkaas u sababsado gacan bini'aadam hadimada geerida qof la dilay ma ahan mid ku ekaata dhimashada qofkaasi oo keliya ee waxa ay sidoo kale sababtaa murugo iyo dhaawac soo gaara qoyskii ama qaybtii bulshada ee uu qofkaasi xubinta ka ahaa mararka qaar haddii aan xal waara loo helin geerida qofkaasu waxa ay reebtaa aano iyo tiiraanyo guyaal socota taasi oo saamaysa nolosha jiilasha dambe ee dadka ay wax kala gaareen haddaba dhacdo kasta oo tiiraanyo iyo murugo reebta waxaa xal u noqon kara wadahadal toosa oo dhex mara dhibanaha iyo godobfalaha waa dhab mararka qaarkood waxaa dhici karta in aysan wadahadalladaasu suuro gelin sababa jira dartood balse waxaad ogaataa in dhibano kasta oo tiiraanyo la nooli u baahi qabo garowshiye iyo qiraal ka yimaada dhibgaystaha maxaa yeelay marka uu godobfaluhu qirto xadgudubka uu dhibanaha ku sameeyey iyo waxyeelladii u geystay waxaa suuragal noqonaysa inuu dhibanuhu ku dhiirado ka gudbidda marxaladdii tiiraanyada lahayd iyo inuu cafiyo qofkii dhibaateeyey daawade dhibano kasta wuxuu maraa marxalad uu isweyddiiyo su'aalo badan oo la xidhiira sidii uu falkii tiiraanyada lahaa u dhacay iyo waxyaabaha sababay si taasi u dhigantana gaboodfale kasta waxaa laga yaabaa inuu hayo qiso dahsoon iyo jawaabo ka turjumaya dhankiisa sidii ay wax u dhaceen haddiise ay wadahadalladaasu hirgeli waayaan garowshiyana aan laga helin dhanka godobfalaha wuxuu dhibanuhu halis u yahay inuu ku sugnaado wareeggii colaadda iyo tiiraanyadii ka dhalatay dhibkii loo geystay sidoo kalena nabarrada iyo dhaawacyadii ka dhashay dhacdadii tiiraanyada lahayd ayaa sii fida intii ay bogsan lahaayeen haddaba walaal ku dhiiro oo geesinimo u yeelo qirashada iyo ka garaabidda xadgudubyadii aad geysatay kuna caawi walaalkaaga dhibanaha ah inuu ka bogsoodo dhibaatadii soo gaartay naftaadana ka horee culayska iyo kurbada godob walaal mar aan la sheekaystay xubno ka mid ah qoyska iyo sida adiga laftirkaaga hadda aan hadalkaaga ka dareemayo waxaa ii muuqataa in nabarkii ka dhashay geerida maxamed uusan weli bogsoonin
oo inkastoo sanad laga joogo haddana xanuunkii uu weli lamid yahay sida inuu hadda dhintay oo kale maxaa sababay taas? waxaa sababay hadba waxaa soo muuqanaya dhacdadiyaa soo muuqanaysa oo foosha xun waxaa soo muuqanaya hadday dhacdo waxay ku fiicanta inay dhammaato intaha noqoto dhacdadii sideed u taaganta yacni wixii dhibka geystay inta ka garaabeen lagama heshiin oo laga wada hadlin dowladda xukun inta ku fulisay tiirka lama geyno lama toogan qofkii marka dhacdadii xanuunkeeda waa taagan tahay annaga waa nugu taagan tahay mar kasta aniga qaasahan way igu taagan tahay maxaa yeelay dhinacna igama dhicin culeyskii dhinacna igama dhicin dhinacna uma fududaan meel aan ku ogahay lama arko wixii yani haddii alla kuran yahay dhibka geystay oo yani inkirma ayaa ku jirta weli inkirmaa jirta la soo taagan dadkaas dhibka geystay weli ma isi soo hor fadhiisateen oo ma ka hadasheen sida ay wax u dhaceen oo ayaga qisadooda ma dhegaysatay? maya isma arkinina sida dhibka u dhacay? maya weligan isma arkin. ma isku dayda inaad is aragtaan oo aad su-aalo ka weydiiso sababtay sidaas u sameeyeen iyo wixii ka dambeeyey falka ay geysteen? ma isku dayda weli? qof ku habboon oo aan isku dayo oo yidhaahda anaa kaala hadlayo ma arkinba. ma jeclaa lahayd inaad la kulanto ayaga waraysato meelaha halisaha yani haddii nafteeda xataa yani u biimeeyey oo aan munaasabka ahayn inaan tago oo yani anigu tegey si aan u helo wararkooda aan u helo dad fara badanna yani haddii alla kuran yahay waa kala hadlayo oo markaan is leeyahay amay caa'il ahaan u dhow yihiin intaba ima suurtoobin wax garaabo igama imaan. waayahay haddii aad la kulanto ma isleedahay oo aad fursad u hesho inaad su-aalo weydiiso ma isleedahay culayskan iyo xanuunkan badan inuu xoogaa isdhimi lahaa? maxaa yeeley inta badan waxaa la yidhaahdaa qofka dhibka loo geystay ee dhibanaha ah wuxuu aad u jecel yahay in uu su-aalo weydiiyo kii dhibka u geystay oo ay isi soo hor fadhiistaan oo weji ka weji ay u hadlaan. marxaladaas mararka qaarkood maku soo martaa oo marmar ma ku fakertaa in ay fiicnaan lahayd inaad hor fadhiisato oo aada weydiiso waxa ku kalifay inay xabad ku dhiftaan wiilkaagii yaraa ee dhalinyarada ahaa isagoo shaqaysanaya? dabcan waa dhici kartaa yani soomaalida waxay tiraada ma ogtahay nima wuxuu yidhahda maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugta haddaa qofkiiba aadan adigu usan dhibka geystay yani uu og yahay isagu waa ku yaqaanaa laakiin adigu ma taqaanid mana doonayo inuu kula soo xiriiro isagii ma doonayo marka yani siaad ku heshaa waa adag tahay waa dhib badan tahay dadkii xabsiga ku jirana laftooda xataa ma lahan war annaga ayagu maxayba qaban karaanba hadda maxaabiis wey dad maxaabiis wax ma qaban karaan marka dee un ilaahay qadartiis wey arrintu waxay nooga timid annaga dowladda nooga timid sababta iyo dhibka iyo marka culaysku wuxuu nooga yimid dowladda weliba mas-uuliyiintii dowladda qaar ka mida xaggeedu nooga yimid welina sidii mas-uuliyiin u yihiin soomaalida waxay tiraa meesha cerka laga filana ceryaama ka timid meeshii dowladda oo nabadgelyada iyo amniga iyo cadaaladda iyo maaragtay dadka inay weliba qaasahaan shacabka ay sheeganayaan shacabka ay sheeganayaan shacabka wax u yihiin ama shacabka wax u yihiin inay arrintaas ka samafalaan oo ka cadaalad sameeyaan oo siday ku habboon tahay waa la garan karaahe loo bareero aad iyo maaragtay ayaan arrintaasaan u codsanayaa ku baraarujinayaa meediyuhun isagaa af dheer inuu gaarsiiyo isagaa laga rabaa dadka qaas ahaan dadka yacni ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ninkaas dhintay allahu naxariiste u duceeyey insha allah ducada maaragta nagu kaalmeeya. marka nidaamka dawliga ah laftirkiisa xoogaa godobaad ka tirsanaysaan oo cadaalad darrada dhinaceeda markii laga fiiriyo iyo dhinaci kaleo dhibka inuu ayaga ka yimid laakiin dowlad ahaan aysan wax tallaabaha weli u qaadin? si fiican aad iyo aad yani waxa weeye waxaa ka mid a meeshaan ninkan la dilay waxaa lagu dilay aaladaa lagu dilay aaladii lagu dilay maxkamadda lama horkeenin gaadiidkii la watay markaas maxkamadda lama horkeenin dembigay qayb ka yihiin dadkii saaray gaarigaas lama wada keenin maxkamadda lama horkeenin marka cadaalad darrada lafteeda halkaasaan yani waa kaaga muuqataa waad arkaysaa maske la fuulo leh hadday tahay waa iska dhacaysaa mogta laakiin haddii
dadkaas ay halaayeen dad shacaba waxaan isleeyahay ama la soo saari lahaa cadaalad ama la hor keeni lahaa walow aan aad uga mahad celinayo qaybihii yani wax ka qabtay sida maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha booliiska qaas ahaan ninkii bartamaha joogay sargaalka hayo weli uu cadda haysta markaas nin aad u qiimo badan buu ahaa CID oo kale sidaas oo kale saldhiggii soo gudbiyey dadaal ay sameeyeen inkastoo yani aan isleeyahay waxbaa dabada uga dheganay weli ma gaarin meesheedii ma gaarin marka cadaalad waa u baahannahay cadaaladaan u baahannahay maxaa yeelay cadaalad darro weeye qof dilay in yacni aan la waajibkiisa aan la marsiin marka dowladdu waxaan leeyahay ha fiiriso arrintaas maaragtahay hoosa u fiiriso waa tahay daawadayaal bal markana nala daawada sheekh cabdulxayi iyo diinta islaamku waxa ay ka leedahay marka uu qofku waayo qof uu jecel yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فضلك وليه قف هدي qof uu jecel yahay uu waayo oo adduunyadan lagu kala tago haddii uu sabro iyo waxa looga baahan yahay diintu waxyaabaha ay ka qabto ayaan wax yar ka tilmaamaynaa horta adduunyadani ma aha midii lagu waaraayey waa mid laga wada socdo qof walbana uu ka tegayaa waa un la kala horeeyaa marka qofkii hormara kan ka dambeeyaay waxaa la rabaa marka uga horeysay arrintaas ay qabsatana inuu xusuusnaado shalay qofkaani muuna joogin waa uu imaaday maantana wuu baxay bixitaankaas uu baxayna ma aha inaan dib dambe isu arkaynin oo halka arrintu ay ku dhammaatee dadka wanaagsan ee saalixiinta ilaahay ka cabsada mutaqiinta ah aakharo ayay meel fiican iyo janno isugu tagayaan waa waxyaabaha naxariista ilaahay ah oo haddii xataa darajo ahaan jannada la kala darajo bato ilaahay dadka hoos jira ayuu soo qaadaya oo dadka sare ayuu u geynayaa marka maalin aan maanta ahayn ayaa la is arki doonaa qofkii marka waxaa laga rabaa markii arrintaas oo kale ay ku dhacdo inuu sabro waxaana isku qalbi qaboojiyaa oo la og yahay adduunkan aynu joognaay ilaahay wuxuu ugu jeclaa rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam wuuna tegey markaas dadka markay sabirsiinayaan iyo tan la yiraahdo law kaanat ad-dunya taduumu li ahliha lakaana rasuulullaahi xayan wa baaqiya haddii adduunkani dadka yani weligood joogayaan ay u daa'imayso rasuulka ilaahay ayaa joogi lahaa marka tacsi kasta oo qofka la soo gudboonaata ama geeri kasta oo ku imaata waa inuu xusuusto khayru khalqillah ayaa ka tegey qofka hadda joogana ma joogayo wuu tegi doonaa kullu nafsin daa'iqatulmowt naf walba geeri ay dhadhaminaysaa marka in imtixaankaas lagu sabro ajir badan ayaa laga helayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayaa la yidhaahdaa in la israaciyo ma ahan oo qofkii yani oo iswaalo oo yidhahda maxay saas u dhacday taasoo kale diintu ma ogolo oo injaabka la iska jeexjeexo oo madaxa yani timaha la jiijiido oo balaaya igu dhacday musiiba igu dhacday iimaan la-aan ayay tahay qiso haddaan soo qaadan arrintaas ku tusinaysa in la sabraay fadliga ay leedahay oo qofka mu'minka caqiidadiisu ay wax la yaab leh ay tahay gabar khansaa la yidhahdo ayaa lasoo xusuustaa walaalkeed oo sakhir la dhihi jiray ayaa geeriyooday xilligii jaahiliga markaasa waxay ka aliftay abyaad badan ama gabayaal badan oo rithaa ama baroor deeq la yidhahdo ay sabri weysay iyadoo dhahaysay qoraxda markay soo baxaysa markay dhacaysaba sakhir ayay soo xusuusisaa oo qoraxdaasba ay calaamad uga dhigtay walaalkeed inayna ka sabraynin oo aad iyo aad ay u jecleed isla gabadhii ayada ahayd ayaa markii dambe islaamku uu yimid oo diinta yani ay qaadatay oo islaamka yani soo gashay oo islaamkii yani ay baratay yaa waxaa dhacday 4 ayadoo ay dhashay ayaa dagaal lagu dilay oo jihaad fii sabiilillaahi saas ah markaas loo sheegay 4tiiba way dhinteen markaas hadalka ugu horreeyay ay tiri wuxuu ahaa alxamdu lilaahi aladii sharafanii biqatlihim ilaahaygii ugu sharfay waxay u arkaysaa in lagu sharfay dilkooda marka waxaa isweydiin leh shalay walaalkeed markuu dhintay ma ayna sabrayninoo waata ay qaylinayso oo yani intaas oo gabay ay ka alifayso wiilashii ay dhashay oo weliba hal mar wada dhintay markay dhinteenna ay leedahay ilaahay ayaa igu sharfay arrintaas ayada ah marka waxay fahamtay muhiimada adduunkan loo joogayay inay tahay qofku wanaag hadduu ka shaqaysto tegitaankan uu tegey inuusan tegine ay tahay inuu bedeshay nolol hadda mid kasii fiicanna inuu u wareegay dadka wanaagsanna wala daarul aakhirati khayru liladiina taqow sidaas ayaa u khayr badan ayaguna way bishaaraysanayeen oo dadkaasi wanaagsan marka ay tagaan inay wado fiican ku dhinteen ayay dadkii leeyihiin hadday ogaan lahaayeen waxa aan helna iyo sida ay tahay sida ay u farxi lahaayeen marka qofka yani ay saas ku dhacdo xilliga la sabrayana waa xilligaas oo yani dhibka u dhacay
inama asabru cinda sadmati luulaa xadiiskii ahaana mar walba waa la isxusuusiyaa gaar ahaan markay musiibooyinka dhibaatada ay jiraan. nin ayaa wiilkeedii ka dhintay, markaas qabrigeeda ayay ku oyneysay, markaas nabi sal ll slam ayaa soo maray, markaas wuxuu ku yidhi iska sabir, markaas waxay ku tiri ilayka cani, iga fogow, wixii aniga igu dhacay adiga kuguma dhicin. halkaas ayay ka maraysay. markii uu ka tegey ayaa loo sheegay, waxaa la yidhi ma garanaysa ninka aad la hadlaysay? markaasay tiri maya. markaas waxay rasuulka ilaahi ayuu ahaa. way ka soo dababaxday, way u timid, waxay tiri rasuulka ilahi kuma aana garanayn, waan sabraya. markaas wuxuu ku yidhi inama asabru cinda sadmati luulaa, sabirku wuxuu ku fiican yahay jugta ugu horeysa markii ay kugu dhacdo. diinteenuna aad ay dadka u qalbi qaboojinaysaa. waxaa naloo tilmaamaya waxaan hadda dhacaya wax hadda la bilaabay ma aha, wax hadda abuurmay ma aha. inta dhulkan iyo cirkanba aan la abuurin ayay hore u jireen. maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha. mar hadday sidaas ay tahay, qofka muminka qalbigiisa wuu qaboobaya, wuxuuna ku qaboobaya arrintaas ah arrin asaga ka horreysa inay tahay oo hadda aan bilaabanaynin. qofkii marka ka tagaa uu naxariistaas ilaahay u raadinaya, oo ilahay u naxariis ayuu dhah u ducaynaya, asaguna wuu sabraya. ilaahay subxaana watacalana jannada inuu isugu geeyo in ilaahay laga baryo ayaa la rabaa. oo marka diintaasi iimaankaa leh oo saas ina faraysa ayaan haysanaa. marka wax dhib ah oo adduunyadan yani hadday dhacaan waxyaabaha looga gudbayo waxay tahay qalbigaas wanaagsan ee diinta islaamka ah. hada wabillahi towfiiq, wasala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waayahay haddii maanta lagu soo hor fariisiyo nimanka ayaga ah ee xabsiga ku jira iyo cid kastoo aad ku tuhumaysa inay dhibka geysatay, haddii aad isi soo hor fariisataan maxaad jeclaa lahayd inaad ku dhahdo? waxun baan dhihi lahayn, soomaali baan nahay, waxaan ku hadlaynaa af soomaali waan isfahmaynaa. hadda wixiina marka qofkii yani dhintay soo noolaan maaye, waxun baan ku dhaqmi lahayn, waxun baan ku dhaqmi lahayn sidii yani qofka wanaagaa dadka dhaqa. haddii qofka wanaag la yimaado de wanaagan anaguna ku qaabilaynaa, hadduusan wanaag la imaana de anaguna wanaag ma hayno, annagaa dhib qabna mogta. waayahay waxaan soo gaarnay qaybta u dambeysa ee barnaamijka. su-aasha aan ku weydii doonana waxay la xiriirtaa cafis, laakiin jawaabta aad ka bixinayso markasta adigaa khayaar u leh, oo qaabka aad uga jawaabaysa adaa iska leh, taas adaa dooranaysid. ma cafinaysaa dadkii dhibka u geystay wiilkaaga ee sababta u ahaa inuu dhinto maxamed? maba maxaan cafiyaaba hadde waxba maba hayaba, ama aan cafiyo ama ayaanan cafinaba, horta maxaan hayaaba? qofba maba hayaba aniga. in yani aada hesho dad horta aad aragtaa ka horeysa maogta, meel cidlaa waxba lagama cafiyo. qof garaabayo oo le anaa dhibkaas geystay ama ha lay cafiyo ama ha laygu qaado, yaa ma laga hadli karaa maogta. meeshii maba yaalaanba, waxaas ma yaalaanba. qofaan cafiyaana ma hayo anugu hadda. cafisna yani maba hadda meeshan u imaan, maxaa yeelay kaligaan daldalmaa maogtahay. ilaahay hadda ma hayo, yani qof iga garaabaysa ma hayo. waa cabasho, anaa iska cabanaya. marka waa sidaas wey. waa kaaga mahad celinaynaa adiga iyo qoyskaagaba. waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aada uga qayb qaadateen soo gudbinta qisada. allah u naxariista maxamed. aada u mahadsan tahay. waa mahadsantihiin, 100% waa mahadsantihiin. reer university hadaatiin iyo dadka dhalinyarada oo na eeganaya, iyo ummadda soomaaliyeed oo idil. arrintaas yani ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in qof kasta oo naxariis bilo-aadnimo ay ku jirtaahay ay wax ka qabato. kii af wax uga qaban kara iyo kii adin wax uga qaban kara intaba. idaacaddana waan u mahad celinaya, aadan ugu mahad celinaya. arrintayduna waa arrin cabasho ah. ilaa iyo haddana ma hayo, haba yaraatee meel aan u raacaba ma fahamsani weli. marka waa mahadsantihiin, 100% mahadsantihiin. waa hagaag daawadayaal, waxaan intaas kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka cafi iyo masaamax oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay qisada maxamed cabdi xuseen oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo muqdisho lagu dilay sanadkii lasoo dhaafay. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan kooxda ka shaqaysay hirgelinta barnaamijkan. gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa dhammaan qoyska reer cabdi xuseen oo si wanaagsan noogala shaqeeyay inaan soo gudbino qisada maxamed. allah u naxariistee. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka. waxaan idinkaga tegaynaa maca salaama.
ah